waxaan rabaa inaan u sheego ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan cid kasta oo warkani gaadhayo dawladaha deriska beesha caalamka in duqayntii ugu xumeed ay xalay Laas Caanood ka dhacday taasoo muddo soo socotay ayna ahayd tii ugu faraha badnayd ee xalayto fiidkii la bilaabay taasi waa qodobka kale waxaan rabaa inaan kelmad iraahdo rag fara badan oo Hargeysa ka hadlayay qolada Gadhxijis waxaan rabaa ee shalayto hadlaysay waxgaradka ah anigoo salaamaya inaan kelmad iraahdo ilmaadareyaalow anigu markii aan yaraa ee aan garaadsaday annagoo dhalinyaro geela waxaan ugu hees jiray hartiye saaq sidii hoban daba weyn hartiye saaq sidii loo helay loogu hadaliyo looguma heshiin waynu isleen jiray waynu heshiin jiray tol iyo derisna waana wax badanna waa ina ka dhaxeeyaan laakiinse markaynu isleen jiray waxaynu isku leen jiray waxaynu garaan oo ah kuraas geel iyo dal iyo damac inta way isku leen jiray maanta waxa aad Laas Caanood ugu soo duusheen ciidamadiinu ay Laas Caanood dadka ugu xansuuqayaan ma garanno dagaalka qolada habar awal oo hogaaminaysa waxa ay ku dagaalamayaan waanu garanaa waqtigii mudaxileedkii kursiga ay hayeen baa dhamaaday waxay siyaasadii ka gashay in Laas Caanood dadkeeda la duqeeyo oo la xanaaqo iyagu waxay ku dagaalamayaan waanu garanaa laakiin qolada Gadhxijis waxaanu isleeyahay marka ay qolada hawar istiri ku muddo kororsada xansuuqa iyo garaacista Laas Caanood oo saaqna ku kiciya mucaaradkana iskaga jebiya haboonidiin inaad garaweydaan baan filayaa nin la oran jiray Maaweel baa nin barhayare la yiraahdo in adeerkiisa Sacuudiga uga tago markaas wuxuu damcay inuu boqor ka dhigo deedna maalintii dambe isagoo tijaabinaya wuxuu yiri maxaan ku qabtay markaas uu shaar iyo surwaal qurux badan iibi Maaweel wuu gabiyo wuxuu yiri ha cubtam wuxuu caan buu ahaa baa aqalkii bari cimaamad buu qaadan jiray maalin la iscunay ha cubtam aduun baan lahaa caawin iyo laana waxaan kugu caqiibayn lahaa caynaba farasay markaad cugatay shaar iyo surwaal sida caruurtu la canuufadii dib baan kaaga laqay kaana cawdsaday qolada Gadhxijis waxaan leeyahay sharito hadlasay waxaanu islahayn markii qolada habar awal ay istiri ku muddo kororsada in Laas Caanood la duqeeyo oo la xansuuqo baasha way fahmayaano tarahooda ilaashanayaan waxay oranayaan hadii baydankeeda leeyahay war dagaalkana la joojiyo oo ka daaya magaalada xansuuqa systemkana mudaxileedkiisii waa dhamaaday doorashaha la qabto oo Hargeysa doorashaha laga qabto anaga doorasho naga suuroobi mayso waxa wayna kama dhaxeeyaan oo door dhexdhexaad ah bay qaadan lahaayeen oo maanta hadii baydankeeda leeyahay tarahooda ilaashan lahaayeen haddii aad gooja cadde iyo odagoy iyo madaafiicda nagaraacas aad shiishirida iyo cabeeyo aad ka wada noqotaan waa nasiibkiin Gadhxijis intaas aan leeyahay halka idin dhaafi maayo culimadii hadlasay waxaan leeyahay waxaan filayaa Soomaali inaad isnacdeen waxaan idin hor lahaa Ilaahay isnacinina oo ka daaya fadwada qabyaalada ka daaya taana intaas aan leeyahay dawladaha deriska iyo beesha caalamka iyo dadka xabad joojinta leh xabad joojin hal sameeyana waxaan leeyahay 1922 ayaa ciidan Ingiriis iyo Isaaq iyo Xabashi iswataaniman ugaadeen oo awaare degan ku duuleen dagaal fara badan baa dhacay oo nimankii ugaadeen way isdifaaceen iyagoo lagu soo duulay lagu gardaran yahay baa ugaadeenkii la yiri xabadda joojiyo arrintii bay aad uga yaabeen deedna nin ugaadeen gabay ku jawaabay su'aashii ku filan wuxuu yiri irdaa gabay islaanu bariyahan uguma ognayn aflagaadadiisa nabcaay aana godobeed aniga iyo idoorna way saragnacayna ajashan ka gooyo iyo waxaan ku ijtihaaday ajar baan ka deeyaa sidii ehelkii reer caad ragale xabadda hal la joojiyo war anagu xabad ma wadno ilmaadeerayo anaga ciidankaasi way saragnacayna waxay laayeen maatadayadii gabdhahayagii culimadayadii aqoon-yahankayagii cuqaashayadii waxa la dumiyay magaaladii xabadii baan ugu socotaa anaga ciidankaasi waanu kala dhimanay waanuna is aragnacayna suurtagal ma aha gooja cadayagoo jooga ama ari cadeeyo jooga ama canjiid jooga ama tuula samakaab jooga ama yagoori jooga ama guumeys jooga inay suurtagal noqoto inay xabadu istaagto waayo intaaba waxa degan dadkii ay xansuuqeen waxaan rabnaa ciidanka in oog la geeyo marka oog la geeyo cidii qabanaysa reerka iyo dadka waqooyi ka soo duulay
diyaar baanu anagu duulimaadna maahi nabadna waanu doonanaa taana intaasaan leeyahay waxaan rabaa inaan kaloo caddeeyo ismaaciil cumar geelle dagaalkaasi badheedha buu ugu jiraa arrinta iyada dhexdhexaad kama noqon karo hubkiisii iyo raggiisii iyo kaartadiisii iyo diyaaradihiisii basaasiinta wax basaasayey iyo khadkii telefoonada wax ugu fududaynayo intaba dagaal buu kaga jiraa ismaaciil cumar geelle arrinta annaga iyo ciidankaana dhex marasa iyo siyaasaddaas hargeysa dhexdhexaad kama noqon karo intaasaan ummadda u sheegaya wabillahi tawfiiq dadka faraha badan ee reer waqooyiga ah ee dhaqan leh ee siyaasiyiin leh ee culimo leh ee aragtidooda iyaguna cabiray ee aan ahayn dadka qabyaaladda iyo caadifadda iyo sida kooban u fikiraya lambar 1 boqor cismaan buurmadow aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan kale u mahad celinayaa xildhibaan axmed khaliif oo isna sida xaqiiqda u hadlay oo waxa jira ka hadlay oo maanta qofku waxaa loo baahan yahay inuusan qof bayna noqon wuxuu yahay haddii ay caddaato oo haddii ay cakiranto arrin ay caqdiga wada codkar kale hufay u baahan tahay oo calool adag waxaa maanta isaaqna ku filan annagana nagu filan ninka ilaahay ka baqaya ee raganimada leh ee fikirka caadiga abaari kara ee ku dhiiran kara laakiinse odayaal in la soo ururiyo aan maanta oran karayn systemka wardadka ka daaya garaacista iyo xansuuqa ka daaya waana wax suurtagal ma noqonayso shirkadaheeye oo isna kelmadda xaqa ka hadlay aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa iyo cid kasta oo ama aamusan oo cabsoonaysa ama hadashay oo fikirka xansuuqa ay wadaan systemkan hargeysa ka yimi ka soo horjeedana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa